waxaa jirtay baahi guryo la'aan annagoo ah danyarta magaalada Jigjigo waxaana lagu caawiyey inaan guryaha aan kirada kaga baxnay shayadii mar qura ay isbedeshay marka kiradii waan kaga kaaftoonay guryaha fiican baan degannahay guryaha dawladdu ay leedahay jira 65 7 sano isbedel ku jira ayaa la dhisay magaalooyinku si ay u noqdaan kuwa ku habboon nolosha bulshada oo ay u dhan yihiin adeegyada islamarkaana bilic leh ayaa waxaa tiirasha horumarinta magaalooyinka ee ay magaalooyinku ku taagan yihiin ka mid a nidaamka guriyeynta oo loogu talagalay in wax lagaga qabto baahida guryaha ee soo food saarta bulshada magaalooyinka ku dhaqan si haddaba dhibaatooyinkaasi wax looga qabto ayaa waxaa la aasaasay wakaaladda horumarinta iyo maamulka guriyeynta oo loogu talagalay horumarinta guryaha islamarkaana ay maamusho guryaha ay dawladdu hirgeliso iyada oo ilaalinaysa islamarkaana fulinaysa awaamiirta iyo shuruucda la xidhiidha horumarinta magaalooyinka dhowrtona bilicda iyo tayada guryaha dawladda kaalinta kaga aadanna ka soo baxdo kobaca dhaqaalaha deegaanka korna loogu qaado ka qaybgalka mashaariicda horumarinta guryaha ee bulshada bahwadaagta iyo qaybaha ay khusayso si looga jawaabo baahida muwaadiniinta magaalooyinka ee guryaha taasoo qaybna ka ah yoolasha u yaalla wakaaladda iyo ujeeddooyinka ay wakaaladdu u aasaasan tahay oo ah xallinta baahida guryaha ee ka jirta deegaanka islamarkaana abuurto fursado shaqo oo ballaadhan kana soo baxdo kaalinta kaga aadan dardargelinta horumarinta iyo maamulka guryaha ee deegaanka Soomaalida. wakaaladda horumarinta iyo maamulka guryeyntu waxay u aasaasan tahay in ay horumariso ay tarmiso badiso guryo wadeerado deegaanka maadaama oo baahi badan loo qabo guryeynta waxaynu ognahay baahida guryeyntu waxay la mid tahay baahiyaha aasaasiga sida waxbarashada kale baahida hoyga marka laba tiir ayay wakaaladdu ka kooban tahay waa tiirka horumarinta guryeynta iyo tiirka maamulka waa in guryaha jira ama sii jiray la maamulo oo xeerar iyo nidaam iyo shuruuc loo sameeyo lagu maamulo iyo in la hormariyo oo la tarmiyo oo la badiyo oo kuwa kalena la soo kordhiyo waxaynu ognahay isbedel ka hor 7 sano wixii ka horreeyay institution guryeyntu wuxuu ahaa mid kala baahsan oo institutionka kala duwan ku kala baahsan waxaa jiray shirkadda horumarinta guryeynta sidoo kale waxaa jiray wakaaladda kareynta guryaha dawladda sidoo kale waxaa jiray xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismuhu waxaa hoos yaallay oo qayb ka ahaa waaxda horumarinta guryeynta saddexda institution ayaa dib loo mideeyey bayaanna waa loo sameeyey maandeedka iyo awoodaha wakaaladana dib ayaa loo habeeyey intaa dabadeed waxaa la dhigay qorshe 10 sano ah iyadoo laga duulayo jihada xukuumadda iyo xisbigu ay maartay institutionada dawliga ay siiyeen waxaa la dhigay qorshe 10 sano ah annagoo markaa qorshaha ka duulayna isbedelku intuu dhacay intuu maartay intii ka dambeysay 7 sano isbedelku dhacay waxaa la dhisay 697 guri guud ahaan guryaha dawladdu waa 1157 halka marka waxaad garanaysaan 65% ka mid ah waxaa la dhisay isbedelku 7 sano jira ayaa la dhisay guryaha dawladda hadafka iyo himilooyinka wakaaladda u degsan oo ah horumarinta guryo wadareedyo tayadooda iyo heerkoodaba la sugay qiimo macquul ahna lagu helo kaalinna ka qaata bilicda iyo horumarinta deegaanka ayaa waxaa sanadkan 2017 wakaaladdu ay qabatay shaqooyin aasaas iyo saldhig u noqon kara himilooyinka iyo hadafka u yaalla wakaaladda 2017 waxaa hirgalay oo qabsoomay tiradooda gaadhayso 74 guri oo intooda badan ay hirgelisay dowladda federaalku oo maartay laga kala dhisay sida Godi, Shabeelley,
iyo Dhagaxbuur, Qawri Bayax, Jigjiga ayaa qabsoomay. Sidoo kale waxaa sanadkan qorshaysnaa in korjoogteyn lagu sameeyo guryaha dowladda maadaama gobollada deegaanka oo dhan ay ku yaalaan, in xaaladooda iyo waxay ku sugan yihiin lasoo eego. Dhammaanna waa lasoo egay. Wacyigelintii ay u baahnayeen dadka muwaadiniinta ka faa'iidaysanayeen waa la siiyey. Sidoo kale waxaa qorshaysnaa in guryaha dowladda database loo sameeyo oo xogtooda la kaydiyo, taana waa la dhammaystiray. waxaa kaloo qorshaysnaa qaybo ka mid ah dayactir in lagu sameeyo. dayactirkaana iyadana way qabsoontay, waa la dhammaystiray. waxaa qorshaysnaa in la dhammaystiro guryaha maaragtay G+1ka qabridaare ku yaala deyrkooda boqolkiiba 90 waa la dhammaystiray, gebagabay marayaan. ka jawaabidda baahida guryaha magaalooyinka oo ah mid bilo ah, qorshahana loo qaatay in fiiro gaar ah la siiyo, ayaa waxay dadka ilaa hadda ka faa'iidaystay fursadana u helay in ay kaga baxaan baahida guryo la'aanta. ay tilmaamayaan in baahida guryuhu ay tahay adeeg asaasi ah oo u baahan in wax laga qabto, aadna ay ugu diirsadeen maadaama ay kaga raysteen dhibaatooyinkii ay ku jireen. waxaan deganahay xaafadda 12aad gaar ahaan ayarheylka kondomiyamka ku yaala jidka Soddonka. ilaahay baa mahad iska leh marka hore, mar labaadna dowladda ayaa mahad iska leh iyo xafiiska guriyeynta. waxaa jirtay baahi guryo la'aan annagoo ah danyarta magaalada Jigjigo, waxaana lagu caawiyey inaan guryaha aan kirada kaga baxnay. alxamdulillaah rabbil caalamiin, waana loo dayactiray, waana nala siiyey baahidii guryahana waan kaga baxnay. alxamdulillaah, aad iyo aad bayna u mahadsan tahay. waa 30 guri weeyaan aqaladani. waxaa laga kaaftoomay kiradii guryaha. iminka aqalka ugu yaree sidan oo kale Jigjiga ama waa 30,000 ama waa 25,000. laakiin dowladdu nasteexada u samaysay dadka. markii hore 500 baa lagu gelayey, iminkana 1 riyaal baa laga dhigay. heshiistan waa la galay. ilaahay maadi weeyaan, wax ilaahay laga helo weeyaan. aqalka sidaas u eg ood 1 riyaal ka bixinayso, oo dad danyaray u badan yihiin. dee ma kari karaan guri 30,000 oo bil walba ah. qofkii mushaharkiisa wuxuu qaatana waynu garanaynaa. kolkaa waxaan leeyahay qolada guriyeynta ku shaqale, inkastoon xidhiidh badan leenahay, dee guryo badan dadka in salnoo kale loogu sameeyo oy kirada kaga kaaftoomaan. shaqaalaha dowladdu weliba aad loogu dhiso guryo fara badan ayaa loo baahan yahay dowladda iyo qolada guriyeyntuba inay u dhisaan. waxaan nahay xirfadlayaasha caafimaadka ku guulaystay. noloshayadii mar qura ayay isbedeshay. noloshayadii waxay isku bedeshay mushaharkii aanu qaadanaynay maanta kadee kira kuma bixinay. maanta noloshay carruurtayda iyo qoyskayga ku maaraynaya. mid ma aha qof kira ku jiray iyo qof maanta maxaan ku dhahay guri asaga shaqsi u leeyahay ku jiro. qof u wada haysto kirada way ku dhib badan tahay. marka maxaan ku dhahay qof markuu maxaan ku dhahay kiraysta yahay aad bay maxaan ku dhahay duruufo u kala duwan yihiin. marka maanta aniga maxaan ku dhahay kira la iga bixiyay oo dowladda iga bixisay oo eega muddo degan. marka aad baan ugu faraxsanahay. waa nolosha asaasiga waxa la yiraahdo hoyga aad ku nooshay waa nolosha asaasiga ka mid ah. nolosha asaasiga markaadan haysan oo mulki aad kolka aad ikhtiyaar u leedahay aadan haysanina waa nolol adag weeyaan. nolosha marka way adkeyd bay ka dhigan. waxaan deganahay wadada Wajaale, guryaha qodobaha ku yaala. guryaha waxaan deganahay fiican dowladdu dhistay, dowladduna siisay. marka kiradii waan kaga kaaftoonnay. guryaha fiican baan deganahay. wax yar biyaha naga yar xun, leerkii waan leenahay, biyihii waan leenahay, biyaha naga yar xun. marka waa iska fiican alxamdulillaah. kiradii waan kaga kaaftoonnay. dawaka waa iska fiican ilaahay maadi. dowladdu guryahana siisay aad bay u mahadsantahay. waan u mahad celinaynaa aad iyo aad.
guryaha jira ee dowladdu leedahay waxay u qaybsan yihiin guryo loogu talagalay shacabka inay degaan iyo guryo loogu talagalay qaybaha dowladda inay degaan. Intuba waxay leeyihiin xeer lagu maamulo, xeerkaasoo maaragtay kala saaraya meesha ay ku yaallaan, ma guri ganacsiba, ma guri deegaanaha. Sidaad la ogsoon yahay guryuhuna isku wada nooc maaha, way kala gedsan yihiin. Meeshay ku yaallaan iyo baaxaddooda kala gedsan. Waxaa lagu qabto qayb ganacsi weeye, suuqay ku yaallaan, qaybo maaragtay waa deegaan baa loogu talagalay. Marka iyadana waxaa la diyaariyey shuruucdii lagu maamuli lahaa. dayactir dayr waa naloo deyray, waa marmar baa naloo dhigay, waa nalaga rinjiyey. alxamdulilah, xafiisku aad iyo aad buu mahadsan yahay guryeynta. adeegyadu xaafadu biyo way wada leeyihiin, laydhkii way wada leeyihiin. qof baa kara oo ku darsaday tawaangidan, waa qofkii kara ayaa ku darsaday. dayactir qaar u baahan iyo qaar aan u baahnayn oo dadku ay ku darsadeen way jiraan labadaba. dee ilaahunbaa laga helaa, waa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. kirada dadkuna inay iska bixiyaan, waayo haddii qof leeyihi habeen walba dul taagan yahay waa lagu kadeedi lahaa. se dowladda waxay u arkaan dadku waxay isagu iska leeyihiin. dad baan laga yaabaa inay kiradaana bixin, biyaha bixin, laydhkaana bixin. dadweynuhu ay iska bixiyaan intaana. aad baan uga baxnay, aad kirada waan ka raysanay. alxamdulilaah, ilaah baa mahadda iskale, iyo dowladdeenna iyo xafiiska guryeenta. aad baad u mahadsantihiin. guryaha way noo hagaajiyeen, way noo dayactireen, marmar iyo albaaba iyo rinji iyo wax walba way noo geliyeen. aad bay xafiisku mahadsan yahay iyo dowladdeenna. waxaan degannahay qabalaa 6 wadada Wajaale, guryaha qodobaha. marka guryo dowlad baan degannahay, kiradii waan ka kaaftoonnay. alxamdulilah, dowladda aad bay mahadsan tahay. marka dowladdu aan u mahad celinaa. waxaan guryo aan kira ahayn oo aad u fiican oo dowladduna siisay ayaan degannahay. marka dowladda u mahad celinaa, aad bay mahadsan tahay dowladda. wax kasta way noo dhammaystireen, laydhka wuu joogaa, mar kasta wuu joogaa, qasabadiina mar kasta soo dhacaan. ka wax naga maqan ma jiro. adigoo dhammaystiran ma haysan. dadka shacabka guryaha dowladda ay gacanta ku hayaan in ay maaragtay ilaaliyaan badqabka, maadaama ay waxaan ay yihiin hanti ummadda ka dhaxaysa, ayagana ka faa'iidaysan yihiin. wakaaladda horumarinta iyo maamulka guryeynta oo wakhtigani ay guud ahaan gobollada iyo maamul magaalooyinka deegaanka ay hoos yimaadaan 1,157 guri oo ay wakaaladdu maamusho, ayaa waxaa 65% guryahani la hirgeliyey isbeddelkii kadib, taasi oo muujinaysa muhiimadda la siiyey ka jawaabidda baahida guryaha. baahida guryeyntu waa mid ballaadhan, waa mid laga dareemi karo guud ahaan magaalooyinka deegaanka. ha u badnaato caasimadda Jigjiga, meelaha dadka ay u badan yihiin. saan hore u sheegay, baahida guryeyntu waa mid la mid ah sida kuwa aasaasiga, waxbarashada iyo biyoka. waxaa qorshaha 10 sano ee yaalla ka mid ah qayb baahida guryeyntu. waxaa maaragtay la rabaa garabka shacabku inay ayagu qaataan, qaybna dowladda ayaa qaadanaysa. waxaan hore u sheegay guryaha jira ee deegaanka hadda guryaha dowladdu ay leedahay jira 65% 7 sano isbeddelku jira ayaa la dhisay. hadduu ilaah yidhaahdo in horumarka guryeynta lasii dardargeliyo iyo xeelado badan oo lagu horumarinayo oo institutionno maaragtay bangiyada ay ka mid yihiin in ay qayb ka qaataan oo loo bandhigay, iyo foormo la qabtay baa jira oo la rabo hadduu ilaah yidhaahdo qaybtaas inay iyaguna ay qaataan oo garabka shacabka, bangiyada bareefadka iyo kuwa dowliga u tahay. marka dadaallo soconaya oo maaragtay la rabo in lagu soo kordhiyo guryo cusub ayaa jira hadduu ilaah yidhaahdo.
si looga jawaabo baahida dhinaca guryaha ayaa waxaa jihooyinka iyo istaraatiijiyadaha la qaatay ka mid a maadaama baahidani aan lagaga bixi karin keliya guryaha ay dawladdu dhisto in laga qaybgeliyo hay-adaha lacagaha ee sida bangiyada islamarkaana la dhigtay qorshayaal kala duwan oo lagaga jawaabayo baahida guryaha kuwaasoo isugu jira qorshayaasha sannadlaha iyo qorshayaasha muddada fog ee 10 sano. sanadka 2018 waxay maaragtay xukuumaddu jihooyinka la bixiyey waxaa ka mid ah in la dardargeliyo horumarinta guryeynta oo qaybo cusub lasoo beeriyo haddii la yidhaahdo ka xukuumadaan jihooyinka la bixiyey sanadkan in wax laga qabto 2018 ayay ka mid tahay in guryo cusub lasoo beeriyo haddii la yidhaahdo baahida guryeynta ama horumarinta guryeyntu si guud markii magaalooyinka loo yimaado 7 tiir ee loogu talagalay magaalooyinka in lagu horumariyo tiir ka mid ah guryeyntu weeyaan magaalo hadday jirto khasab waxaa ahaa guryo in la helo saa darteed waxaan rabaa halkan anoo ka faa'iidaysanaya fariin inaan u mariyo bangiyada bareefadka iyo maaragtay kuwa dawligaba qaybtooda inay ka qaataan haddana sidaan sheegay dadaallada socda la rabo maaragtay in ay qaybo ka mid ah ay qaataan bangiyada haddii la yidhaahdo guryahaas oo mustaqbalka noqon doona kuwo dadka hayntooda haysato wax ka tara baahiyaha guryeynta la dareemayo haddii la yidhaahdo